Markii Eritrea xornimada qaadatay 1993, Itoobiya waxay si lama filaan ah isugu aragtay xeeb la'aan. Sidaas darteed, waxay qaadatay tallaabooyin macquul ah oo ay ku kala dirtay ciidamadeedii badda. Hadda waxay dib u eegis ku samaynaysaa go'aankeedii hore. Dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee gobolka ayaa sheegaya in laga yaabo inay ka dukaamaysato agagaarka xaafadaheeda si ay u hesho saldhig ciidan oo ay u isticmaali karto danaheeda khaaska ah. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa dhowaan ka sheegay TV-ga dowladda, waxaan dhisnay mid ka mid ah ciidamada cirka iyo dhulka ugu xooggan Afrika. Waa inaan dhisnaa awoodda ciidamada badda mustaqbalka. Hadalkiisa ayaa daaha ka rogay hamiga badda ee Itoobiya, balse qorshayaashiisa ku aadan sidii uu hadafkaasi ku gaari lahaa ayaan la shaacinin. Si kastaba ha ahaatee, dadaalkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ee ah inay heshiisyo la gasho deriskeeda xeebaha leh ayaa shaki badan muujinaya. Haddaba su'aashu waxay tahay, maxaa dabada ka riixaya tallaabooyinkan ay Itoobiya qaadayso waqti xaadirkan? Shirkadda Fana Broadcasting Corporate ee xiriirka la leh dowladda Itoobiya ayaa ka soo xigatay Mr. Abiy inuu yidhi, dib u habaynta militariga waa inay ku xisaabtamaan xaaladda hadda sida xawliga ah uga socota dunida dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed ee Itoobiya. Markii Itoobiya iyo Eritrea ay dagaal qaraar ku dhex mareen xuduudaha sanadihii 1998 ilaa 2000, waxaa yaraa fursadaha ay Itoobiya ku isticmaali karto dekedaha Eritrea sidii ay horeba u isticmaali jirtay. Markaa waxaa qasab noqotay in la helo beddelaad kale. Itoobiya ayaa hadda dhowaan saxiixday heshiis ay saami ugu yeelanayso dekedda Djibouti, taas oo hadda laga dhoofiyo 95 dhammaan badeecadaheeda laga dhoofiyo iyo kuwa laga soo dejiyaba. Waxa kale oo Itoobiya iyo Djibouti isku xira khad tareen oo cusub oo 472 mayl ah oo la furay sanadkii hore, kaas oo isku xira caasimadda Addis Ababa iyo dekedda Dowra leh oo ah ballaarinta dekedda Djibouti. Roba Magasera Kawak, oo ah madaxa shirkadda ay dowladda leedahay ee Shipping and Logistics Services Enterprise, ayaa Bloomberg u sheegay in Itoobiya ay ka walaacsan tahay in Djibouti ay gacanta ku hayaan ciidamada badda ee shisheeye. Maraykanka, Shiinaha, Japan iyo Faransiiska dhammaantood waxay ku leeyihiin saldhigyo ciidan. Waxaan ka baqaynaa laga yaabee in xitaa Djibouti aysan yeelan fikrad u gaar ah oo ay si dhab ah uga tashato aayaheeda. Tani waxay khatar ku tahay Itoobiya, ayuu yidhi Mr. Roba. Waxa uu intaasi ku daray in ciidamada badda ay sidoo kale gacan ka geysan doonaan ilaalinta 11 maraakiibta ganacsiga ee Itoobiya ee ku sugan badda cas, halkaas oo Itoobiya ay ka leedahay dano kale oo dhaqaale. Itoobiya sidoo kale waxay leedahay machad rayid ah oo badaha, kaasoo lagu tababaro in ka badan 500 oo injineerada badda iyo saraakiisha farsamada gacanta sanad walba, iyada oo la qorsheeyay in lagu tababaro in ka badan 1000 sarkaal sanadkiiba. Sida laga soo xigtay machadka badda ee Itoobiya, ardayda qalin jabisay waxay leeyihiin xirfado iyo aqoon loo baahan yahay si ay ugu guuleystaan warshadaha maraakiibta caalamiga ah. Diblomaasi hore ee Itoobiya, Berhane Meskel Abebe, waxa uu qiyaasayaa in istiraatiijiyadda iyo walwalka amniga juqraafiyeed ay keeni karaan qorshaha ciidanka badda ee Itoobiya. Xuquuqda ay Itoobiya u leedahay inay isticmaasho biyaha caalamiga ah waxay doonaysaa inay ku yeelato saldhig ciidan, ayuu u sheegay barnaamijka Newsday ee BBC-da. Waxa uu soo jeediyay Kenya, maamulka Somaliland iyo Djibouti meelaha suuragalka ah ee saldhiggan. Qorshaha ayuu Mr. Berhane Meskel ku sheegay inuu yahay mid lagu riixayo mideynta Geeska Afrika oo ah urur dhaqaale. Ciidamada baddana waa qayb ka mid ah mashruucaas. Wuxuu sheegay in Itoobiya ay adeegsan doonto xiriirka dhaqan iyo dhaqaale ee ay ku leedahay gobolka si ay ugu riixdo hamigeeda badda. Maxay kula tahay? Fikirkaada ka dhiibo.